deegaankan oo ka tirsan gobolka Mudug waa wada sidaas oo waadhif inaad aragto geed caleen saaran tahay dhulkana cunno ari kuma soo dhawaan waxaase degan halkan qoysas aan haysan meel ay uga rogtaan Xaliimo Cigaal Axmed Goorduhura ayaan kula kulannay gurigeeda oo ku yaal miyiga degmada Galdogob ee gobolka Mudug xerada xilligan qoyskoodu degan yahay mid aan ka dheeraynay ku jireen markii abaartu cayraysay sanad ka hor hadeerna waxa ay qarka u saaran yihiin wixii xilligaas ku dhacay abaartu ku xigtay argayga waxa weeye hadda meel dhow halkaan aanu ku jirnay waa muuqan ka dhameeshan abaartu ku xigtay ku jirnay waxa umaleeyay 5 sano laga joogay adigu ari 8 noo soo doogay markii abaartu ku kacdayna 3 tiro waa abaartan hadda wali uu haslamay hadda ari badanna waa ka baxay sahan hay'adda Save the Children samaysay waxa ay ku sheegtay in 4.6 milyan oo qof oo Soomaaliya ay haysato cunno la'aan kuwaas oo u baahan gurmad degdeg ah dhulka aanu soo maray saaka waxaanu meelaha qaar kula kulannay fuustooyin inta la gooyay sidan dabka u saaran bini'aadam waxba loogu kari maayo laakiin xoolihii waxay gooyaan waayay oo dhulka baadka kala ayaa waxa loogu karinayaa galley magaalo laga keenay oo loo jilcinaya waxa qaaliyoobay sida ay dadka deegaanku noo sheegeen biyihii oo kor u kacay dhulkan kama u diin gugii iyo dayrtii midna dadka xaaladiisu 100% waxay aad u garaacaysaa meel hoose shaygi maarata iyo wixii maarata qarashad xoog la geliyo wixii la geliyay baa ka muuqanaya laakiin daaq ma jiro celal biyood ma leh bawadu waxay ku keentaa 30 qaadu $35 calaafuusta waxay u dhigmaysaa $1 iyo adigu 2.3 meelahaas Xaliimo waxa ay qoolka ka gurtay waxaro ku xiraa maree ku taal geed quraca oo guriga rabadantiisa ah waxaana ay baaf ugu daadisay madibad galley ah inta waxarahaasi cunayeen galleyda ma dhamayn 5 daqiiqo laakiin haweeneyda qoysku waxa ay ka walwalaysay meesiyadii kale oo ay waxaraha inta la wadaajin lahayd ilaa wax kale uma awoodo ariga waxaan u karinaa quulle diraac labaad iyo diraac saddexaad 2 sano quulle hiisha dhexdeeda ku jira awal hiilhaan aan u gurnaan u karinaa ma garata geelana galleydaas $25 kiishka yahay baan u karinaa ma garata weeye gacan qabsi hay'adood shil aanu ka helo iyo neef ma asaga laga xulo iyo wax tal aan ka gacan qabana wax adigu maaragtaa tal aanu dhahana in adeero maanta tabar ma hayna magaalada ha jooga ha u batee baan waxa ku waxaynaa adigu untoosi kaba maaragtaa kaba duwana waa sida qoyskan iyo ka daran reer guuraaga abaaruhu rafaadsheen ee ku nool Soomaaliya subax walba oo cadceed hor la soo baxdo waxa ay u sii dhawaanayaan halista noloshooduna waa mid ka sii daraysa inta abaartu jiitamayso Maxamed Xasan Dhalo Gaalkacay